ly da 4.6 bay noo tahay hal dhinac baa laga xigaa dhinacan wada edge 2 baa laga xigaa dhinacan baa laga xigaa laakiin dhinacan lagama xigo marka edge 4 maxaa leenahay waa d oo wax inna c hadda weeye d baa u bedelana d hadda u bedelno macnaheedu waa maxay waa halkaas wax islaaba kama xigo marka la joogo shortigana waxaan leenahay edge 1 baan laga xigin laakiin edge 2 islaab baa ka xiga saas baa iyadana maxaa magaciisi ku kala garanaysaa hadba continuous hadduu yahayna waa dhinaca islaab ka xigo continuous hadduu yahayna waa dhinaca islaab ka xigan shaqadan gelinaa marka shaqada koowaad waxaan ka bilaabanaa inaan lxt lydii aan meesha ku wada qoranno waxaa la lxt waa 4.3 halka ay tahay lyduna tahay 3.9 ay tahay halka waxaan leenahay waa 4 lxt waa maxay waa 3.9 lydana maxaa leenahay 4.3 maybe 4.3 na ahayd 4.3 yes 4.3 weeye heightkana badanaa islaabka heightkiisa waxaa la qaataa 125 150 200 inta waa qaadan kartaa laakiin hadduu islaabkaagu yahay islaab weyn mar walba waxaa fiican 125 inaad qaadato hadduu islaabka islaab normal yahayna 150 kaaga inaad qaadato hadda waxaan qaadanaa anaku 125 baan qaadanaa 125 markaan qaadano waxaanu self weight muxuu noqonayaa 4.2 4.2 ku timid 125 waxaan ku dhufaanaa 24 125 ku dhufo 24 kaana waa self weight-ka ama density of concrete sorry 175 lagu dhuftay 24 ha waa 4 anaa waxa weeye waa millimeter weeye markaad u bedelaysid meter kun baa u qaybinaysaa 4.2 agawa 4.2 adigu waa 4 waa kun baa u qaybinaysaa 4.2 bay noqonaysaa halkan baa kuu soo hartay halkan waxaa sameynaysaa wadayt wasaan ii sheego external loadka anoo bs code ku eegana waxaan qaadanaa hadda 1.5 mar walba oo isku bedisid waxaa laga yaabaa inuu design loadkaaga aad u bato marka 1.5 kaasaan qaadanaa imposed life kana waxaan qaadanaa 3 daas baan qaadanaa marka waxay noqonaysaa marka design loadka total loadkaaga ama loadka uu wado wuxuu noqonayaa 12.78 12.78 sabab ku soo baxday waxay ku soo baxday waxa weeye horta 5.7 ka wuxuu ku soo baxay 4.2 oo lagu daray 1.5 4.2 oo lagu daray 1.5 4.2 oo lagu daray 1.5 waa 5.7 5.7 ka waxa lagu dhuftaa waxa la dhaho partial factor of safety engineeringku aad ayuu uga taxadaraa wax walba ay wuxuu leeyahay lama gaarsiiyo limitka ugu dambeeyo shayga lama gaarsiiyo marka suusan shaygaas hadduu shaygaas 100 qaadayo lama dhaho 100 kaas lama gaarsiiyo waxa la dhaho factor of safety baa lagu dhuftaa oo hadduu 100 qaadayo shayga culayska hadduu 100 qaadayo waa in konton la saaraa kontonka kale ay noqotaa factor of safety oo noqotaa marka maxaa lagu dhufanayaa day loadka waxa lagu dhuftaa factor of safety 1.4 baa lagu dhuftaa waa 7.98 7.98 3 haddii aan qaadanana waxa weeye waa left loadki oo aan hadda hadda soo sharaxnay waxaan ku dhufanaa iyadana 1.6 baan ku dhufanaa waa 4.8 waxaan ku daranaa waxaan ku darsanaa 7.98 ka dayta haysanaa ku darsanaa 12.78 saasi ku soo baxda marka culayska uu qaadayo islaabkeena maxaan leenahay marka culayska uu qaadayo islaabkeena culayska uu qaadayo
waa 12.78 12.78 12.78 waa culayska uu islaabkeena qaadayo. marka waxaan rabnaa inaan ogaano culayska uu u gudbinayo dhinacan trapeziumka iyo culayska uu u gudbinayo dhinacan iyo culayska uu u gudbinayo dhinacan baan rabnaa inaan ogaano. see ku ogaanaa marka waxaan soo saaranaa excel kale baan adeegsananaa iyadana excelkan beamka ayaa loogu talagalaa. waxaan sameynaynaa marka 12 nalt waa design loadkii baa gelinaysaa hadda way noo gashan tahay 12.78 wayba inoo gashan tahay. halkaana waxaan gelinaynaa lxta dhinacan yarkaa muxuu noo ahaa dhinaca yarkaa wuxuu noo ahaa 3.9 dhinaca weynna wuxuu noo yahay 4.3 dhinaca yarkaa 4.3 3.9 wuxuu noo yahay 3.9 ayuu noo yahay. dhinacaana wuxuu noo yahay 4.3 ayuu noo yahay. camera lxta waxaa aadaya 12 ly'dana waxaa aadaya 13. macnaha waxa weeye ly'du qaab wuxuu noo ahaa trapezium soman ahayn culaysna waxaa aadaya 13 adigu 13.6 14 iska dhig 14 baa aadaya halka ly'duna aadayso 12. slaabkeeni waan ku laabananaa. slaabkeena waxaan leenahay intaan noo soo koobiyey dhinacan culays baa aadaya dhinacaanna culays baa aadaya dhinacaanna culays baa aadaya dhinacaanna culays baa aadaya. wadaayitaan la soo baxnay dhinaca lxta 12 baa la soo baxnay dhinaca ly'dana 14 baa la soo baxnay. dhinacan waxaa la soo baxnay waa lxta 12 baa la soo baxnay yes 12 la soo baxnay 12 iyo 14 dhinacaana waa isla dhinacii kale maradaran oo kusoo koobiyeenana hal dhinac noo qor. dhinacan kalena oo trapeziumkaana wuxuu u gudbinayaa beamkaana wuxuu u gudbinayaa 12 ayuu u gudbinayaa may 14 bay helaa 14 bay noo ahayd 14 culays dhan buu u gudbinayaa maadaama dhinacan ay la mid tahay waa isku mid dhinacan iyo dhinacan waa isku mid wuxuu u gudbinayaa isna sidoo kale 14 ayuu u gudbinayaa. dhinacan kalena sidoo kale wuxuu u gudbinayaa 14. hadda waxaan soo ogaanay slaabkani kow shaqada slaabka nooca uu yahay waan soo saaranay noocuu yahay markaan ogaanay waxaan ogaanay design loadka ama loadka uu qaadi karo slaabkeena. kadib waxaan ogaanay afarta dhinac maadaama uu two way yahay afarta dhinac uu u tuurayo culayska uu tuurayo dhinac walba imisuu qaadaya dhinac walba imisuu qaadaya. hadda marka waxaan rabnaa inaan ogaano mid walba waxaan rabnaa two waygana inaan marku dhinac kaa tuso hadda marka waxaan rabnaa inaan ogaano beamkaani culaysku qaadayo halka islaab baan waxaan rabnaa ku sameyno culaysku beamka qaadayo iyo culaysku columnka qaadayo. marka two way haddaa fahantid one way baan gelanaa. markaa one way iyo two waygu wax yar ayay u kala duwan yihiin. hadda waan soo ogaanay culayskaana uu qaadayo. marka waxaan rabnaa beamka ma 14 keliya u qaadaya 14 keliya ma qaadi karo wuxuu qaadayaa beamka self weightkiisa waa kow waa culays laftigiisa beamka laftigiisa culays buu leeyahay waxaan self weight waxaan lahayn maba jiraan. marka self weightka culayska asaga uu leeyahay selfigiisa iyo peakska ilaan waxa meesha blockade baa la saarayaa ama wall baa la saarayaa ama wuxun baa la saarayaa. marka blockade-gaasi culays buu ku hayaa asna saddexdaa culays oo lagu daray islaabka culays ku helayo afartaa culays buu qaadayaa. marka wuu ka duwan yahay beamku wuu ka duwan yahay culayska uu qaadayo. marka waxaan rabnaa saddexdii culays markaa xisaabino inaan ku darno muxuu ahaa 14kaas uga imaanaya islaabka uga imaanaya intaas buu markaa kadib